siyaasadeedka galool ayaa lagu qabtay caasimadda dalka jamhuuriyadda Soomaaliya ee Hargeysa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin aqoon-yahano madax dhaqameed iyo ergooyinka shirweynaha galool ee gobolada dalka ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay guddiga qabanqaabada ee shirweynaha urur siyaasadeedka galool nagama dambayso celi ruuxaantii dhalinyarta fircoon oo isku duwan oo isku taxaadan oo active ah oo ruuxaantii isku duwan baan nahay mid kama dhaco giddi waxa waxay walaalayaal idinkana waan soo dhaweynaa ruuxaantii aad baad mahadsan tihiin sidoo kale kolay waxaan ku riji doonaaye shirguddoonka oo ugu doonto goobta waxaynu ka waabi doonaa xidiyaha inta ka horreysa kelmadii baan noqon lahaa bulshadeena Soomaaliland marka sawirtid waxaad qoranaysaa dowladnimadu waxay tahay inaysan fahamsaninba dowladnimo waxay tahay inaysan fahamsanin waxaa jirta nidaamka dowladeed marka la eegayo dowladdu maaha in lacag loo soo shaqo maaha in lacag laga helo maaha in ahaantii laga tabcado maaha midbaa ku dhalinayaa dadka moodaya in dowladda lacag laga helo dowladdu waa goobu adeegta dadka marka waxaan doonaa ciddii doonaysa in ummadda u adeegto inaysan ciidda gashanayso filan inay meesha lacag ka horeyso ay tahay ummad loo adeegayo runahantii hawshana ummadda loo shaqeynayo waxaana shirkan lagu doortay shirguddoonka hogaamin doona shirweynaha urur siyaasadeedka galool shirweynahaasoo lagu dooran doono xeerka ururka hogaamiyaasha ururka iyo barnaamijka siyaasadeed waxaa halkaa ka hadlay siyaasiyiin madax dhaqameed iyo aqoon-yahano ugu dambeyn waxaa hadalka soo gebagabeeyey guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee urur siyaasadeedka galool waxaana hadalladiisi ka mid ahaa urur siyaasadeedka galool mabda'a ugu weyn uu sidaa waxa weeye ama barnaamijkiisa ugu weyn waa inuu wax ka qabto deegaanka maadaama wuxuu leeyahay galool sumadiisuna ay tahay geedkii galoolka dhaqaalaheeduna badiba uu ku xidhan yahay xoolaha nool iyo beeraha haddii aanaynu dunida wax ka dimin waxa aynu cunaynaa la soo bixin noqon mayno quran jira oo si daba cagihiisa isku taagnaada oo dhaqaale ahaan waxbarasho ahaan caafimaad ahaan intaba isku filnaada taasaynu kaga maarmi karnaa gacmo shaqeeya waxaanu doonaynaa si uu dhaqaalaha dalku ku dhismo inaanu waxay tuulay dib ugu celino dhaqista xoolaha iyo beerista beeraha haddii ilaahay nagu guuleeyo oo siyaasadeedka galool uu noqo xusbi barnaamijkiisa waxa uu hogaamin doonaa dhalinyaro aqoon-yahana oo soo bandhigi doona qorshe dhaqaale oo dadka uu lagaga qabto kaasoo ugu horreyso in si dadkii xoolaha iyo beeraha beeraya ee yaqaanay dib loo celiyo in reerka ama qoyska boqol ariya ama xoolaha dhaqda in maxay ahayd toolay boqolkaa xoolaa iyo dadadooda dowladdu ay miisaaniyad kaba weliba ugu raaci doonto si loo dhiirigeliyo oo maxay ahayd toolay u noqdaan kuwo dakhli fara badan soo saara dowladda maraykan cashuurta waa laga dhaafaa carruurtooda waxbarashadu waa u wilaash dadka beeralaysa qamaadida shiniile ee Soomaaliland halkaa ka soo gasha ee dunida lagu maamulo maraykan waxaa soo saara dadkiisa beerida taasaa laga sameeyaa buskudka taasaa laga sameeyaa heeda taasaa laga sameeyaa keega taasaa lagu noolyahay oo dhan marka maanta waynaynu taasna arrinta labaad ee aynu doonayno inaan si weyn uga qabanno waa waxbarashada Soomaaliland ma laha manhaj waxbarasho oo ka turjumaya dhaqanka aqoonta ilbaxnimada iyo xadaarada dadka reer Soomaaliya haddii aanu noqono xisbi haddii aanu noqono inaanu ku guulaysan karo dadka waxaanu meesha ka saaraynaa kow inaanu baabi'ino manhajka laynoo soo wareegay ee UNESCO iyo UNICEF xagga sare laga keenay waxaanu guulaysan doonaa dadkeena aqoon-yahanka abwaanada culimada dadka dhaqanyaqaanka ah iyo dadkii waayo aragga iyo khibradda aqoonada ah si ay u sameeyaan manhaj dalka ka warqabay oo nolosha dalkan iyo dalkan